generaalka saameynta leh ee furmaha dagaalka tagay ee General Morgan iyo generaalada kale ee weheliya ayaa bilaabay arin aad u farxad gelisay ciidanka iyo shacabka Puntland oo aad ay uga naxeen cadawga ku soo duulay dhulka Puntland ee argagixisada ah. maxaa soo kordhay? warkan wuxuu noqon karaa war soo dadajisa in meesha laga saaro kooxda Daesh. ilaa iyo maalinkii xabadu ay bilaabatay ee dhar jaale aan ogeyn qaraxyadii ay ka sameeyeen ajaanibta ilaa iyo maanta Puntland hamigoodii maxaa ka suura galay? dadkii lahaa Puntland way fashilmi doontaa, Puntland waxba islama hayso, halkee ayagun marxaladoodu ay maraysaa? muuqaalkan ayaan ku dul istaagaynaa guulaha lama taabtaanka ah ee sidii qoraxdii sacbad aan lagu qarin karin ee geesiyada Puntland ay gaareen. soo dhawaada. sida muuqata daawadayaal qaar badan oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa qalbiga kala jira, ka taageeraya, uga duceynaya shacabweynaha reer Puntland, ciidankooda iyo madaxdooda oo dagaal culus ku jira. dagaaladan ciidamada Puntland ay ku jiraan muddo ka badan bil ayay qaateen. howlgalkan waxaa loogu magac daray howlgalka ciribtirka ee Hilaac. howlgalka Hilaac waxa uu ka bilowday dhar jaalle deegaan duleedka ka ah, haddana waxa uu marayaa deegaan ugu yaraan 300 oo kiiloomitir tiro ka badan u jira magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland. Puntland dagaalkan waxay ku weysay ciidan muhiim u ahaa, saraakiil muhiim u ahayd iyo waliba wax kasta oo qaali ku ah xagooda, iyagoo ujeedkoodu uu ahaa in ay dadkooda u dhintaan si ay dadkooda u badbaadiyaan. halka argagixisada laga dilay amiiro wadamo kala duwan ka soo jeeday carabse u badnaa oo iyaguna qaar badan oo kamid ah aakhira loo diray. kooxda Daesh waxay u badan yihiin ajaanib halkan ka dhigtay fariisin aad u weyn. fariisinka ugu weyn ee Daeshna waxaa lagu sheegayba in dhulkan uu ahaa qaaradda Afrika marka la eego, inkastoo meelo kamid ah Afrika isla kooxdan ay ka dagaalanto oo kooxda Daesh ay tahay koox laamo fara badan leh. kooxda Daesh waxay ku dagaalamaysaa hub casri ah, waxay ku dagaalamaysaa hubka tiknoolajiyada ee dagaalada casriga ah loo adeegsado sida drone-ka qaraxyada lagu soo xiro, qoryaha saamshootarada iyo waliba miinooyinka halista ah ee loo dhiga baabuurta iyo ciidanka infantry-ga ah. waxaas oo dhan ciidamada ammaanka ee Puntland kama hor istaagin in kooxda Daesh la fashiliyo. wax kastoo dhagartooda ah Puntlandna loo sheego in rag ay leedahay, rabbina ay leedahay, sidaa daraadeedna macquul aysan ahayn in qof ajnabi ah oo wadankiisii dambi ka soo galay dhulka Puntland uu ku raaxaysto. dhulka kooxdan gacanta ay ku haysay waxaa ku jira macdan qaali ah. ciidda oo kaliya ayaa la sheegay, dadka aqoonteeda lehna ay ku sheegeen in ciid qaali ah laga helo dhulkan, in sidoo kale dhir qaali ah laga helo, halkana ganacsi ay ka sameynaysay kooxda. dhulkan inta badan hadda ciidamada ammaanka ee Puntland ayaa gacanta ku haya, waxaana indhahooda ay ku arkeen sidii loo raran jiray ciidan qaaliga ah iyo dhirta oo la geyn jiray wadamada qaliijka, isla markaana dhaqaale fara badan laga sameyn jiray. waxay xaaladda ugu darneed dhowr cisho ka hor oo lagu arkay furmaha dagaalka General Morgan, General Indhayare iyo General Bashir America oo ah 3 generaal oo aan kala dhicin oo reer Puntland ah oo tusaya ciidamada ammaanka ee Puntland in garb ay u yihiin, in gaashaan ay u yihiin, iyo in ciidamadan ay yihiin kuwa guulo laga sugayo. waxaa dhacday daawadayaal in marka ciidamada ammaanka ay u tageen saraakiishan, ciidankii niyadii ay hayeen niyad ka weyn ay sii heleen, sababtoo ah raggan gadaashooda taagan ee hortooda socda ee saraakiishan Soomaaliyeed ah waa rag dagaal micnihiisa, guuldarada micnaheeda iyo guusha micnaheeda isla yaqaana sida loola dagaalamo jabhad, yaqaana sida loola dagaalamo ciidan qabiil, yaqaana sida loola dagaalamo ciidan dawladeed. sidaa daraadeed General Morgan oo kale dadka yaqaana waxay ku qeexeen inuu yahay nin generaal ah oo maanta ka haray generaaladii asalka ahaa ee dibadda wax ku soo bartay ee dagaalka yaqaana. ciidamada geesinimo ayay ka qaadeen arintan. madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaana ugu talagalay in dhiirigelinta ciidamada aysan noqon in lacag la siiyo iyo in cunto la siiyo, laakiin dhiirigelintooda ay qayb ka tahay in saraakiil culculus dhinacooda ay ku arkaan, in saraakiil culculus ay shaah la cabaan, in saraakiil culculus isku gaari ay raacaan,
saraakiishan oo iyaguna diyaar waa inay u dhintaan Puntland si Puntland loo badbaadiyo. Puntland badbaadadeeda oo kaliya ma ahayn Soomaali weyn badbaadadeeda ayaa laga shaqeynayaa, difaacidda diinta islaamka ayaa laga shaqeynayaa, difaacidda dhaqanka suuban ee Soomaaliyada laga shaqeynayaa, waxa laga shaqeynayaa jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Daesh maalin kasta gantaala ku dhacay meesha ay joogaan waa laga dilayaa saraakiil meedadkooda marka dambe meesha loogu tagayaa iyadoo la sheegay in Daesh ay isku dayayaan inay adeegsadaan sixir iyo balaayo kale si howlgallada ay uga baaqdaan, laakiin reer Puntland waxay yiraahdeen ama sixir sameysayna ama balaayo kala sameysayna wiilal quraanka aadka u yaqaanayaan idin soo dirnay meesha ay quraanku aqriyaan waa ka cararaysan. kooxda Daesh waxa laga furtay hubka casriga ah ee ay ku dagaalamayaan qaar badan oo kamid ah. kooxda Daesh waxa laga furtay daawooyin qaali ah oo ay ugu talagaleen inay isku daaweeyaan. kooxdan waxa laga furtay raashin aad u tiro badan oo dabcan sahay u ahaa oo ay ugu talagaleen inta dagaalada ay ku jiraan inay adeegsadaan. godka ugu dambeeya ay isugu tageen, godkan ayaana ay miinooyin badan ku wareejiyeen, waxaana ay aaminsan yihiin in godkan aan loogu soo gali karin kooxda Daesh si kasto ay noqotana ay godkan ruuxda dhigi doonaan oo ay ka shaqeyn doonaan inaan loo soo dhawaanin ama cidna aysan ku dhiiran in godkan loogu soo galo. kooxda Daesh waa koox halis ah. kooxda Al-Shabaab hadda waxay ka dagaalantaa koonfurta Soomaaliya. dadka kooxdan ka faaloonaya xagga ammaanka marka la fiiriyo oo soo aqriyay kooxdan iyo qaabkay u dagaalanto iyo hogaamiyaasheeda qaabkay u shaqeeyaan waxay aaminsan yihiin in Al-Shabaab ay jana yihiin oo kooxdan ay ka sii qatarsan tahay. inkastoo Al-Shabaab naxariis agtooda aysan oolin oo qofkii iyaga aan ka tirsaneen gaal ay ka aaminsan yihiin dhiiggiisa ay banaysanayaan, haddana kooxdan way ka sii duruqsan tahay. marka reer Puntland waxay leeyihiin marka caalamiskaad aan ka soo farxalano Almadow ayaa la aadi doonaa, Al-Shabaab ayaa ku jira, iyaguna dabcan waxa ay wajahayaan go'doon, waa la sii go'doomiyay, cid u gali karta iyo cid halkaas kaga soo bixi karta ma jirto. kooxda Daesh waxa laga qabqabanayaa firxadkooda magaalooyinka Puntland iyo dhulka miyiga ah oo dadka deegaanka ay heegan ku wada jiraan. qof kasta oo ajnabi oo ay arkaanna laamaha ammaanka ay u sheegayaan in qofkaasi uu yahay qof nooca ah oo ay rabaan in la soo qabto. marka daawadayaal reer Puntland way gobonnimo dagaalamayaan. reer Puntland iyadoo dawladda Soomaaliyeed aysan garab taagneen ay isku tashi sameeyeen, ummadda Soomaaliyeedna inta taageersan way soo dhaweysteen iyaga oo sheegay in taariikh ay qormi doonto 2025kana gobolka bari uusan sii noqon doonin qaybo kamid ah bahala galeen kooxo afka soo duubtay laga baqo. dabcan waxa ku furan waxay tahay in comment-ka aad ugu duceyso, muuqaalkan aad sii share garayso, muuqaalkan kan xiga intaan dib ugu kulmi doono. nabadgelyo.